geeri xanuun badan ayaa ku wada dhacday gebi ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Geeridii Allah u naxariistay abwaankii weynaa ee Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ee ku timid bishan Agoosto ee 2022. Abwaanka oo jiray tan iyo 1943 oo ku dhashay deegaan u dhow deegaanka Burco ama gobolka Togdheer. Abwaanku waxa uu ahaa abwaan qaran, abwaan Soomaaliyeed, abwaan ay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay cashar ka baran karto. Abwaanku waxa uu ahaa abwaan aad qalbiyada Soomaalida uga weyn, waxaanad ka dareemi kartaa sida geeridiisa looga wada naxay ee baraha internetka ugu faafay ummadda intaas legna ay u ducaynayso. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. Waxaa afka Soomaaliga ka baxay abwaan weyn, isla markaana kaalin ugu jiray gebi ahaanba luqadda afka Soomaaliga ah ee dhabta ah. Run ahaantii abwaanka qaaliga ah noolaba waa dhintee, Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Waxaa jiray erayo iyo weero afkiisa ka soo yeedhay oo si toosa uu warbaahinta uga jeediyey, isagoo mararka qaarna u adeegsaday in uu hibadiisa gaarka ah oo ku qiyaaso hadafka uu doonayo iyo waxa uu doonayo inuu ku sheego. Abwaanku waxa uu hore inoogu sheegay inaysan qurbuhu ahayn wax wanaagsan oo uu Ilaahay ka baryayo in uu dhulkiisa uu ku nabad sugo kuna dhergiyo. Haddaba waxaan ka baran karnaa abwaanka in dhul jacaylka iyo haysashada dhulkaaga hooyo uu 100% ka fiican yahay qurbaha. Waxaana dareemi kara arrinkan dadka qurbaha tagay. Abwaanku in badan ayuu qurbaha tagay, laakiin marnaba kumuusan daahin oo waxa uu dib ugu soo noqday dhulkiisa hooyo ee Soomaalida. Abwaanku waxa uu ahaa nabadoon, waxa uu ahaa qof aad loo wada qadariyo oo la jecel yahay. Safarkiisii dhulka ah ee u dhaxeeyay Boosaaso ilaa iyo Beledweyne waxa uu ahaa nabadoon, waxaana ummadaasi markii uu marayay Soomaaliya uu ummadda oo dhan ay u ahayd nin qaaliya oo dhex maraya, taasi oo keentay in xataa magaalada Muqdisho ee Soomaaliya la isku furo xaafado isku furnaa kadib markii uu kala garqaaday ama arrinkaasi uu isagu garwadeen ka noqday. Abwaanku waxa uu ahaa abwaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan dhinac walba oo fikrad ahaan iyo waxyaabo khaldan laga kala aaminsan yahay, waana waxa cusub ee haatan jire. Waxa uu ahaa qof ay aad u qadariyaan. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. Waxaan rajaynayaa in aynu wax badan ka baran doono abwaankaas Soomaaliyeed ee qaaliga ah Hadraawi, waana in aynu mar walba u ducayno Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. Waxa uu inagu soo kordhiyo aad iyo aad ay u badnaayeen, waana wax qaadasho mudan. Abwaanku aad ayuu necbaa dhinaca iyo siyaasadda. Dhowr jeer xukuumaddii Soomaaliya ee militariga kacaankii Maxamed Siyaad Barre ayaa dhowr jeer xidhay intii u dhaxaysay 1973 ilaa 1978. Kadib markii la sii daayay abwaanku, waxa uu inta badan uu eraya ka yidhi ama markaasi uu hibadiisa gaarka ku cabiray sidii ay wax u caburinaysay xukuumaddii kacaankii ee Soomaaliya ee 1960 dhamaadkiisii qabsatay Soomaaliya ee uu horkacay Maxamed Siyaad Barre. Hanu ducayna dhammaanteen Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. Abwaan qaaliya, abwaana ku wada midaysnayn, abwaan agteena qaali ka ah ayaa ka baxay gebi ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Afka Soomaaliga ah iyo dhulka Soomaaliyeed oo dhan ayuu ka geeriyooday. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo abwaan Hadraawi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.